guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha ayaa maamulka jaamacadda Simad waxa uu kala wareegay shixnad dawo ah oo loogu talagalay dadka fatahaaduhu ay saameynta ku yeesheen. Faafahinta warkan waxaa eegaya Cabdirashiid Nuur Ibraahim. guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha ayaa maanta jaamacadda Simad ku wareejisay shixnad dawo ah oo loogu talagalay in looga qayb qaato gurmadka loo fidinayo dadka waxyeeladu ka soo gaartay daadadka ka dhashay fatahaada webiga Shabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. gudoomiyaha jaamacadda Simad Daahir Xasan Daahir Carab ayaa ku wareejiyay 98 kartoon oo isugu jirta dawooyinka loogu talagalay in lagu tacaalo cudurrada ay suurtagal tahay in ay ka dhashaan daadadka. waxaan halkan markaa rabnaa inaan ku wareejino daawo ilaa 98 kartoon ah oo isugu jira daawooyinka loogu talagalay cudurrada ka dhalan kara fatahaadaha webiyada oo kale. waxaan rajaynaynaa daawadaas in si degdeg loo gaarsiiyo gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne sababtoo ah wararka aan maqlayno waxay sheegayaan in webigii inta badan biyaha ay laabteen xilligii cudurradaas ay dilaaci gaareen ay jireen la joogo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka Abukaate Dr. Xuseen Cabdi Cilmi iyo xildhibaanad Farxiyo Muumin ayaa u mahadceliyay jaamacadda Simad sida ay u gurmadeen walaalahooda dhibaateysan oo saameynta adag ku yeeshay fatahaada. daawooyinkaas oo aan ahayn daawo maaragtay liidata laakiin ee daawo waxtar leh timidna markii loo baahnaa markii shayga markaad oomantahay markii biyo lagu siiyo iyo markaad biyo cabto kadib biyaha hesho runtii aad ay u kala fiican yihiin. waxaan mahad iyo bogaadin aan u dirayaa jaamacadda Simad bahda jaamacadda Simad oo dhan mahad ballaaran ayaan uga mahad celinaynaa jaamacadda Simad oo maanta aan joogno kambaskoodii inoogu wareejiyeen daawo 98 kartoon ah oo noocyadii caafimaadka iyo dhibaatada markay dhacday ugu muhiimsanaa sida runtii ah. waa jaamacaddii ugu horeysay ee gurmad u fidisa dadka uu saameynta ku yeeshay fatahaada uu geystay webiga Shabeelle ee ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.